kulanti wacan oo wanaagsan saaxiibayaasha qiimaha badan ku soo dhawaada Wajawa Media halkaad ka helaysaan warar sugan xogo sax ah iyo falanqeyn qiimo badan anigu waxaan ahay Cabdiraxmaan Wajawa waxaan idin soo gudbinayaa maanta qodobadii ugu door corona warkeena caalamka iyo dalka qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah villa Soomaaliya oo beri martigelinaysa kulankii uu kulay dowladda federaalka Soomaaliya iyo mucaaradka masiirka doorashada oo miiska saaran aqoonsiga Somaliland oo ku fiday Yurub Sacuudiga oo xiray maxjarka berbere iyo dagaalka siyaasadeed ee geeska Afrika oo waji cusub galay falanqeyn ku saabsan wararkii ugu dambeeyay isbahaysiga Masar Turkiga iyo Sacuudiga oo go'aansaday inay adduunka baalasha ka jaraan cid kasta oo u adeegta Israa'iil Turkiga oo taangiyo iyo hub cusub ku soo shubay Muqdisho iyo Soomaaliya oo noqotay goob ay ku tartamayaan quwaduhu qodobadaas iyo qodobo kale ayaa barnaamijkeena ku maqli doontaan u diyaar garoow ayagii oo faahfaahsan rabtaa inaad la jaanqaado xawaaraha dunida tiknoolajiyada baraadinaysa qalab tayo leh oo aad isku haleyn karto haddaba ku soo dhawow hadaf technology halkan waxaan kugu diyaarinay laptopsyo tayo leh mobilada ugu casrisan oo ila jiraan agabkooda shaashadaha waaweyn iyo dhammaan qalabka IT-ga aad ugu baahan tahay shaqadaada iyo gurigaagaba haddii aad tahay qof ku jira saaxadda warbaahinta gaar ahaan baraha bulshadu waxaan ku haynaa mikrofoono iyo qalabka studio-da oo dhameystiran agab kasta oo IT-ya wixii qalab aad ugu baahato xafiis ama guri tayo caalami ah adeeg la isku haleyn karo iyo qiimo kugu habboon waa halka aad kaga iibsan karto qalabka electronics-ka hadaf technology xarunteenu waa Baydhabo agaarka Shaneem Shantraal asugin maanta soo booqo hadaf technology hirka tiknoolajiyada mustaqbalka hadafkeenu waa inaan kugu xirno mustaqbalka tiknoolajiyada nagala soo xiriir taleefanada shaashadaha kaaga muuqda waa hagaaga waxaynu ku bilaabaynaa villa Soomaaliya oo beri martigelinaysa kulankii uu kulay dowladda federaalka Soomaaliya iyo mucaaradka miiska waxaa saaran doorashada wajiga labaad ee shirka mucaaradka iyo dowladda oo baaqday lamana sheegin sababta uu baaqday balse warar ayaa sheegaya in maalinta beriya dib la isku soo laaban doono kulamada tooska magaalada Muqdisho waxaa ka socda kulamo gaar oo ay wadaan mas'uuliyiinta dowladda federaalka Soomaaliya iyo xubnaha mucaaradka ee wadahadalka uga furmay madaxtooyada qaranka sida ilo kala duwan aan ku helay kulamadan waxay labada dhinac ugu aransanayaan qodobada muhiimka ee diiradda lagu saarayo wareegga soo socda ee wadaxaajoodka si dhinac walba uu xoojisto ajanda uu la shirtagayo marka laga hadlayo arrimaha doorashooyinka iyo dastuurka waxaa halkaasi ka dhaca doodo kala duwan oo xitaa mararka qaar dowladda iyo mucaaradka ku qasbaya inay ka soo tashtaan qodobada markaasi ku cuslaada sida uu wadahadalka u furmay waa mid degan oo aanu jirin buuq siyaasadeed iyadoo dhinac wax iskula wada marka loo fiiriyo qodobadii hordhaca ee dowladda federaalka Soomaaliya iyo xubnaha mucaaradka ay ka wada hadleen kulamada tooska waxaa dhinac socda kulamo kale oo ay wadaan xubnaha guddi farsamo ee ka soo shaqeeyay in madaxda dowlad goboleedyada Puntland iyo Jubbaland caasimadda soo gaaraan kulamo is araga uu dhaco ilaa ugu dambeyn madaxtooyada la isugu tagaya aqoonsiga Somaliland oo ku fiday Yurub kadib markii dabiyaaqadii sanadkii dhamaaday 2025 ee Israa'iil aqoonsatay madaxbanaanida Jamhuuriyadda Somaliland waxaa sii kordhaya dadaalada lagu doonayo in dalal kale ay qaadaan wadadan Israa'iil oo kale dadaalada aqoonsi raadineed ee ka socda caalamka ayaa ku fiday qaaradaha Yurub Mareykanka iyo dalal khaliijka Carabta waxaana soo baxaya xogo sheegay inay jiraan dalal u soo dabacay qadiyadda Somaliland isla markaana doonaya in sida Israa'iil ay u aqoonsadaan Somaliland dalalka xilligan doonaya inay aqoonsadaan Somaliland waxaa ku jira Giriiga oo kamid ah dalalka fac weyn ee qaaradda Yurub isla markaana xiriir soo jireen la leh qaaradda Afrika Dr. Michael Rubin oo kamid ah khubarada diblomaasiyadeed ee dalka Mareykanka ayaa isagoo qorshaha dowladda Giriiga waxa uu baahiyay bayaan dheer ee dowladda dalka Giriiga ugu yeerayso inay aqoonsato Somaliland Giriiga waa inay ku daydaan Israa'iil sababo la xiriira cadaaladda iyo amniga ayuu yiri Michael Rubin wuxuuna intaasi ku daray ma jiro dal rajo ka qaba in aqoonsi caalami ah uu helo ka mudan Somaliland dowladda Somaliland oo horey u ahaan jirtay xaruntii Ingiriiska
waxay markii ugu horeysay xurnimadeedii qaadatay 26 Juun 1960. dhammaan shantii xubnood ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay waxay aqoonsadeen dowladnimada iyo xuduudaha Somaliland si kastaba ha ahaatee 5 maalmood kadib. Somaliland waxay la midowday dalkii uu Talyaaniga u gumaysan jiray ee Soomaaliya, waxayna noqdeen Jamhuuriyadda Soomaaliya. laakiin tilaabadaasi ayaa taliskii Siyaad Barre xukumayay Soomaaliya uu xasuuqay beesha Isxaaq oo u badan dadka Somaliland, kadibna Soomaaliya ayaa burburtay. inta badan qof kasta wuu xasuusan yahay in macluushii iyo siday wax ka qabashada bini'aadanimo ay isu beddeshay masiibo ayna ku dhammaatay kala tag, ayuu yidhi Master Robin. si kastaba ha ahaatee Somaliland uma riyaaqin godka ay ku dhacday Soomaaliya. waxay dib u soo ceshatay madaxbannaanideedii iyo dib u dhiska, waxayna qaadatay dimuqraadiyadda. Somaliland ma ahan oo kaliya inay qabatay 8 doorasho, tan iyo markaasi waxaa jira doorashooyin ku saabsan xisbiyada tartamaya, laakiin waxay noqotay wadankii ugu horeeyay adduunka ee xaqiijiyay diiwaangelinta doorashada iyadoo loo adeegsanayo biometric scan. waxa ay wax ku dhistay dhaqaalaheedii yar ee ka badan dakhliga kastamka iyo dhaqanka ballanqaadka hufnaanta, waxayna hadda martigelisaa ganacsiyo balaayiin dollar oo isgaarsiin iyo lacagta mobiliska ah. warshadda labaad ee Afrika ku taala ee shidaalka iyo Coca-Cola iyo dekedda Berbere oo baanka adduunka siiyey qiimeynta adduunka ugu sareeya dekedaha. dekedda Berbere ayaa sidoo kale marinka gaarka ee Itoobiya oo suuq aad u weyn, inkastoo aan lagu faa'iideysan ganacsiga Giriiga. Dr. Michael wuxuu ka warmay ahamiyadda dhanka amniga ee ay leedahay dekedda Berbere marka loo fiiriyo maraakiibta ganacsiga ee Giriiga uu isticmaalo marinada ganacsiga ay ka wadaan Xuutiyiinta Yemen. Berbera sidoo kale waa xarun amniya. kor u kaca Xuutiyiinta Yemen ee beegsiga ay ku hayaan maraakiibta ganacsiga ay ku jiraan qaar badan oo leh calaamadda Giriiga, kuwaasi oo hakad geliyey dhammaan maraakiibta, balse taasi waxay saameyn ku yeelatay Giriiga. tani waa sababta Giriiga ay ugu biirtay howlgalka uu hogaaminayo Mareykanka oo markii dambe door hogaamineed ka qaadatay howlgalka ciidamada badda ee Midowga Yurub. ilaalinta badda askariya ma ahan mid qaali ah, balse saameynteeda ka dhanka ah Xuutiyiinta ayaa xadidan, ayuu yiri. wuxuuna intaasi ku daray si loogu howlgalo dekedda iyo madaarkeedii ku dhegan oo laftirkiisu ahaa meel si degdeg ah loogula soo dego qalabka hawada sare ee NASA. Giriiga iyo wadamada kale ee la midka waxay si degdeg ah u ilaalin karaan maraakiibta yaryar iyo kuwa dheereeya, helikabtaro iyo diyaarado kale. Master Robin oo sii hadlaya ayaa sheegay in Somaliland ammaankeedii la isku halleyn karo tan iyo 2018. argagixisaha lama kulmin. haddii loo barbardhigo Somaliland way ka duwan tahay Soomaaliya, ayuu yiri. wuxuu intaasi raaciyay diblomaasiyadda Giriiga ee firfircoon waxay si weyn u sugtay oo ka ilaalisay bariga badda Mediterranean-ka xoogaga argagixisada, laakiin danaha Giriiga ayaa ka baxsan bariga Mediterranean-ka maadaama Giriigu uu noqday xarun ganacsi oo tamar u leh Yurub oo dhan. Giriiga danihiisii ayaa gaaray badda Cas iyo Baabalmandab maadaama Turkiga uu doortay inuu laba jibaaro taageeridda Muqdisho iyo dowladdiisii Islaamiga. Giriiga waa inuu ugu yaraan ku biiraa Denmark, Ingiriiska iyo Kenya si uu xafiisyo diblomaasiyadeed uga sameyso. si kastaba ha ahaatee, waxaase ka sii ficnaan lahayd in la raaco jidka Israa'iil oo lagu soo dhaweeyo Somaliland, ayuu yiri. arrintan ayaa ku soo beegmaysa xilli Israa'iil ay aqoonsatay Somaliland, iyaduna dalal kale ay ku bixinayso inay dalal kale raacaan oo ay la wada aqoonsado Somaliland. Sacuudi Carabiya ayaa xirtay maxjarkii Berbere kaas oo laga dhoofin jiray ariga ah iyadoo loo dhoofinayay Imaaraadka Carabta. sidoo kale waxaa iyana lagu tali jiraa in maxjarka Boosaaso laga xiro Imaaraadka waa haddii madaxweyne Saciid Deni uusan go'aan ka qaadan inuu saaro Imaaraadka, isagoo hadda ku sugan magaalada Muqdisho, halkaasi oo la doonayay in laga hirgeliyo doorashada dalka oo hadda waqtigan la qaban lahaa uu gabaabsi u yahay. Imaaraadka Carabta oo dowlad ciyaaryahan ka ahayd waayihii u dambeeyay Geeska Afrika ayaa hadda waxay ku soo buraarugtay isbahaysiga cusub ee Sacuudiga, Turkiya iyo Masar iyo Qatar oo ku biyo keenay, walla uu wadamo badan intuu baabiyey macdantii ka gurtay ku abuuray dagaal oogayaal calooshooda u shaqaystayaal ah isla markaana dib loogu yaqleelay sida Suudaan, Yemen iyo Soomaaliya oo halis ugu jirta inay kala qaybsanto. dagaalka siyaasadeed ee Geeska ayaa waxaa marino muhiim u ah dunida sida gacanka badda Cas,
gacanka cadmeed, marinka baabulmandab iyo weliba marino macdan iyo shidaal ay ka buuxaan. Soomaaliya waxay sanadihii 2024 iyo 2025 sii xoojisay dhoofinta xoolaha nool iyadoo 2024 laga dhoofiyey ku dhowaad 3.7 milyan neef oo isugu jira qaybaha kala duwan ee xoolaha, halka 2026 la filayo in tiradu gaarto ama dhaafto 4 milyan oo neef sababo la xiriira baahida sii kordhaysa ee suuqyada dibadda. Xoolahaasi waxaa inta badan laga dhoofiyaa dekedaha Garcad iyo Boosaaso oo noqday labada marin ee ugu firfircoon, halka Kismaayo iyaduna door ka qaadato. Si kastaba, dekeda Berbera ayaa 2 sano ee ugu dambeysay wajahday suuq xumo iyo hoos u dhac ku yimid dhoofinta xoolaha. Dalalka ugu badan ee loo dhoofiyo xoolaha Soomaaliya waxaa hormuud u ah Boqortooyada Sacuudiga, waxaana ku xiga Imaaraadka Carabta, Cumaan, Qatar iyo Kuwait iyo Yemen. Qaybo weyn oo ka mid ah ariga iyo geela loo dhoofiyo waxaa si gaar ah loogu iibgeeyaa suuqyada Sacuudiga, halkaasi oo si weyn loogu iibiyo xilliga xajka si loo qalo gudashada waajibaadka xajka. Dhinaca kale, waqtigan aynu joogno waa kii ugu khatarta badnaa ebed gobolku wuu karkarayaa, waxaana soo baxaya warar hoose oo naxdin leh oo ku saabsan isboojeenta caafimaad ee xukuumaha Imaaraadka. Wararku waxay sheegayaan in xanuun degdeg ah dhiig furan uu ku yimid waqti aad u xasaasi ah. Masar, Turkiga iyo Sacuudiga ay weheliso Bakistaan oo haysata awood nukliyeer ah waxay go'aansadeen in amniga qaranku uu yahay khadcas, waxayna bilaabeen inay baalasha ka jaraan cid kasta oo isku dayeysa inay Afrika albaabada u furto Israa'iil. Suudaan, diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Turkiga iyo taageerida Masar waxay leynayaan mooryaanta jabhadaha ay martigeliso dowladahaasi Imaaraadka oo ay kaashanaysa Itoobiya. Waalida weynaanta Abiy Ahmed, boqorka dhalanteedka Abiy Ahmed, hadda wuxuu jilayaa doorka Imbradoor boqor, wuxuuna rabaa inuu badda cas ku gaaro xoog iyo xeelad, isagoo dariskiisa u hanjabay dagaal wejiyo badan leh. Wuxuu u haystaa in dowladda Imaaraadka ee xulafada la Israa'iil ay ilaalin doonaan. Turkiga ayaa dhankiisii sheegay inuu sii kordhinayo taageerada militari uu siiyo Soomaaliya, gaar ahaan dhanka tababarka ciidanka, bixinta hubka. Taangiyo ka yimid Turkiga ayaa maalmahan lagu arkay wadooyinka Muqdisho, halka sanadkii hore Masar ay keentay hub iyo saanado ciidan oo lagu daabulayo maraakiib iyo diyaarado. Arrimahan waxay muujinayaan in Soomaaliya ay sii noqonayso goob ay la kulmaan quwadaha caalamka. Guud ahaan barnaamijkeeni ayaa inta kusoo gabagabaynayaa. Intaan barnaamij la mid aan dib u kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.